khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta lagu gaarsiiyay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab kadib dagaal xooggan oo ka dhacay deegaanka Wargaadhi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ee weerar qarax ku bilowday ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa macawisleeda ay ku leeyihiin deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana la sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ee macawisleeda iska difaaceen weerarkaas kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Sahal Cabdullaahi Cumar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku sugan deegaanka Wargaadhi kuwaas oo la sheegay in iska difaaceen weerarkii xoogganaa ee waaberigii hore kaga yimid maleeshiyada dhinaca ururka al-shabaab. waxaana dagaal in ka badan 2 saacadood qaatay oo halkaas ka dhacay la sheegay in lagu jabiyay maleeshiyadka ururka al-shabaab oo weerarka ay soo qaadeen ay qayb ka ahaayeen maleeshiyad ajaanib ah oo u dagaalama ururka al-shabaab. abaanduulaha guutada 18aad ee Kumaandooska Gorgor oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Wargaadhi ayaa warbaahinta u sheegay inay markaasi jabiyeen dagaalkii ay soo qaadeen maleeshiyadka ururka al-shabaab haddana ay ku baacsanayaan deegaano ku yaala duleedka deegaankaasi. wararka kale ee Kenya helaysa ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyadka ka tirsanaa ururka al-shabaab ee ka baxay deegaanka Wargaadhi ee gaaray deegaanka Tawfiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo markaasi halkaasi ku sugan la sheegay in duqeymaha dhinaca cirka diyaarada dagaal oo kamid ah saaxiibada caalamiga ah ee la beegsan iyadoo la sheegay in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed lagu gaarsiiyay gaadiid fara badan oo ay wateen maleeshiyadka ururka al-shabaab ee markaas isaga tagay weerarkii ay ku soo qaadeen deegaanka Wargaadhi halkaasi lagu burburiyay. saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u sheegay in saacadaha soo socda ay soo bandhigi doonaan khasaaraha dhaawaca dhimashada iyo burburka hantiyeed ee dagaalkii saaka lagu gaarsiiyay maleeshiyadka ururka al-shabaab ee weerar ku soo qaaday deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. saaxiib aabba kula hadlaya wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys aniga kugu daray waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 5 sano oo isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega